waxay bilowday inay qof Soomaali oo qori wato inay soo saarto waxay kaloo fasaxday dooniyada shisheeyaha inay hub soo qaataan oo waxa arkaysa RPG oo sidana ku arkaysa waxa ku arkaysa BKM waxa ku arkaysa AK waxa ku arkaysa bastoolado heerkaas inay gaarsiiyaan ma ahayn laguma talagelin qofkeeda shisheeyaha haduu ku yimaado waa inaad la dhaqantaa inaad dal inuu soo asii ku arko shisheeyo inaad taaso asna inaad dareensiisaa meeshaan faataxa kuma joogno moogta wadanka anaga iskale waxa noo soo galay anaga noo soo galayaan waxay baxayaan anaga noo baxayaan meesha la hormarinayo waxay tahay dhul Puntland ka soo bilaaw cirifka loo yacada ilaa cirifka Raaskambooni ama Lamu dawladda Soomaaliya leedahay ama dhulka Soomaali oo intaas ku eegaya xuduudiisa marka la Lamuna dad iyo saxmaan ii fahmin ana waxa aaminsanahay Great Soomaali wax la yiraahdo ma aaminsani in sheeg Soomaaliya hadda sida loo dhigo 7ka ah fikirkiina halkaas waxa rabaa inay ila fahantaan kabtamada tiimkana u sheegaya xawaa ana waxa aaminsanahay Great Soomaali Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed aaminsanahay meesha suudinta ii taalana tii 60 ilaa hadda taas aaminsana marka kabtamada aan isku soo koobayo hadalka waxa la rabay Puntland ma ahan Kenya ma ahan Ethiopia ma ahan waa dad Soomaaliyeed waxa waajib ah marka xuquuqdeeda inay qaadato oo kaalinteeda horumarka ay soo bandhigto waayo ayada maanta dekada way heesaa waa aragtay dhalinyarta oo dalxiiskeenay u tagaan bucaaya arkaysa waxa arkaysa isha ilaa iyo qarkii jambiga raasacseer inay dhalinyarta soo duubaan meel ka caagan ma ahan dhalinyarta inay soo bandhigaan ama dalka uu leeyahay kuuyo waayo waa dal shisheeye inay tahay marka waxa kala dhiibi lahaa wasiirka dowladda dhexe kalluumaysiga ah iyo ra'iisul wasaaraha inay u sheegaan maamulka Puntland wixii siyaasad waa siyaasad sax wixii aan siyaasad ahayn oo dhabta ahna waa tii dhabeed in la kala saaro isku darin Assalamu alaykum dhamaan asxaabta ku xiran janaalkeena Somgold Davis waa islaamnay meel adduunka joogtaana waxaan leenahay galab wanaagsan intaas kadib muuqaalkan galabta waxa ku la fuqur doonaa shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir shirkaas oo ah shirka toddobaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga dalka waxaana horeys kooban la yeelan doonaa Dr. Shucayb oo ka tirsan bahda Marines Kamsan aad u xil shaqooyinka la xiriiro badaha Soomaaliya anagoo ka fiirin doono dhanka positive-ka iyo dhanka negative-ka kabtan ku soo dhaw programkeena galabta waa maasintahay kabtamahad aniga kaliya ma dhownin aniga iyo tiimkeena Somgold dhamaanteena ana afkooda ku hadlayo waa wada dhowna waxa jeclaan lahaa inuu kabtanka su'aalaha uu naga yareeyo oo nagu badin marka waa dhownahay dhamaanteen okay kabtan Soomaaliyeed waxay tiray hadal yar iyo howl badan waa sax marka insha Allah sidaas sameey doonaa kabtan Shucayb saawada soo maanta magaalada Muqdisho waxa ka furmay shirka toddobaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga dalka shirkaas oo muuqday mid sensitive ah aqoonyahan muxuu ku saabsanaa maxaan loo dhigi karaa shirkan toddobaad horta kabtamada waa maasantaa horta wasaaradda shirkan maanta soo bandhigtay horta shir soo daahawa si guud saa ugu fahantid waxaa rabaa si kooban inaan u sharxo wasaaradda waxaa laga rabay sanadkan bilowgiisa 2026 bishii koowaad iyo bishii labaad aan rabay inuu dhaco marka wasaaradda dhowr jeer dib u dhigtay maanta iyo 16 April inay shirkaas daafurto xogaa late waxay ku soo aaday dowladda iyo maanta golihii baarlamaanka ilan golo sharciyeysan waa baarlamaanka xilligiisa dhacay maanta la yiri baarlamaanka hala kala diro in bilaamandii inay ku soo aadis xogaa wax qurux badan ma ahan bishii soo socotay 15keeda ogtahay madaxweynaha madaxweynakiisa iyo xukuumadda dhan waa halkaas ku egtaa marka shirkan waxa la rabaa before sanadka cusub iyo before bishii koowaad iyo bishii labaad at least xitaa markii ugu dambeeyay Ramadan kasta aan soo dhaxgalo laakiin bishii March inay ku soo aadisay la rabay horta shir la wada sugayo dhamaan baxdeena kalluumaysatada oo waa ka wada simanaa taas oo hadii shacab noqoto iyo xagga dawladda hadii noqoto iyo dhamaan guud ahaan dalka waa barnaamij aad loo wada sugayo oo la daneynayo maadaama uu ka hadlayo horumarinta badda aad marka kabtan shirkan waxa ka soo qayb galay guud ahaan agaasimayaasha guud wasaaradaha kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga iyo goboleedyada
maxaa la dhihi karaa ayagan kasoo qaybgalka ay kasoo qaybgalka kabtamadu waa su'aal fiican oo jeclaan lahaa markasta saan oo kale inaad su'aalo noocaan oo kale aad ii weydiiso oo waxaan u leeyahay kabtamadu wasaaradda dhinac ay active ka tahay dhinacna waxay ka tahay offline oo active ka ma ahan dhinac ay active ka tahay kulankan maanta inay qabtaan maamul goboleedyada dalka oo dhan ay kasoo qayb galaan markii laga leeyahay hal maamul goboleed waxay tahay waa wax weyn muujinayo in wasaaradda loogu bogaadiyo connecting ee la leedahay maamul goboleedyada dalka maamul goboleed kasta wasaaraddiisa kalluumeysiga iyo kheyraadkiisa asaga u madax banaan dowladda dhexe laakiin waxaa waajib ku saaran inay connecting ee xiriir leeyihiin wasaaradaha maanta ii sheeg la dhaho seera-eeda ah oo ilaan dal kasta wuxuu leeyahay mogtahay wasaarada oo A iyo B iyo C u kala baxo wasaaraddeena laakiin ha iskaga hoos jirto dhinacaas offline-ka oo dhinaca negative markii laga fiirinayo waa inay kaalinta D iskaga jirtaa waa iska caadi wax weyn ma ahan laakiin muhiimaddu waxay tahay waxay muujisay ama maanta soo bandhigta oo wax lala cajiibo in maamul goboleedyada dalka ay imaadeen ee maanta shirki kasoo qayb galeen kaaga daran halka maamula maqano Puntland ah teeranka hore xashi maxamuud saas oo kale xoogaa khilaaf jiray teeranka xadirtaan oo ii sheeg xilligii farmaajona waxaa jirtay sidaas oo kale khilaaf u dhexeeyay maamulka iyo ii sheeg madaxda dalka teeranka haddana isla sidii oo kale waxaa moodaa in xoogaa khilaafkii inuu taagan yahay laakiin ka wasaaradda ahaan waxaa la rabay in doorkooda ay ka ciyaarto oo haddii maamulkaas maanta ay keeni lahayd ee dhahdo waxa dowladda isku haysaan ama madaxweyne waxa isku haysaan halkaasay naga tahay laakiin ka shaqo ahaan inaad meeshiina iyo waajibkiina soo haleeysaan xoogaa meeshaas wasaaradda waxay ka muujinaysaa xoogaa inay ka daciifayso waayo waxaa la rabay wasaaradda ayadaa xaq u leh shirka ayadaa qabanayso madaxweyne ma qabanayo galmudug Puntlandna sida hadda maamul goboleedyada kale dalka usoo ajiibeen inay usoo ajiibtaan la rabay inkastoo madaxdeedana xoogaa ayagana siyaasad ahaan la isku haayo marka halkaas markay kasoo gudbo horta wasaaradda dhinacan waa ka bogaadinayaayo waxay hadda sheegaysaa ama soo fariin gudbin doontaa in maamul goboleedyada iyo wasaaradda isku xiran yihiin heerka wasaaradaha oo kalluumeysiga maamul goboleedyada waana wasaaradda maanta la dhihi karo waxaa isku imaada dhammaan maamul goboleedyada wasaaradaha kale badanaa ma leh inay connecting saas ku sameeyaan ama kulamo inay iskugu imaadaan wallahi maamul goboleedyada dalka kasoo qaybgalaayo wasaaradda meeshaas waxay ku leedahay bogaadin iyo dhiirigelin waxaa fiican wax kasta markaad negative-ka ka sheegayso iyo positive-ka waa inay isku balance yihiin sida kale wasaaradda ha noqoto heerka la rabay hadda wasaaradaha kale dalka dowladda ka jiro ama wadamada kale ay leeyihiin kabtamahada waxaa jirto markaas u fiiriso ama u kuur gasho wasaaradda kalluumeysiga la marwanay dalka ka tahay wadamada kale waa lagu xisaabtamaa wadan kasta haddaad tagto qaybtiisa kalluumeysiga ama wasaaradda kheyraadka buluuga sida Soomaaliya u leedahay caalamka haddaad tagto lambar 1 ku jirtaa maanta dowladeena waxay uga jirtaa xitaa seera-eeda kuma jirto seera-biida kuma jirto seera-siida kuma jirto biyay joogtaa meesha ugu dambeeyda waa marka waana xaalad jirto in dib loo cusboonaysiiyo shirarka ay qabanayaan way fiican tahay wax way soo kordhinayaan connectiga wahayaan oo maamul goboleedyada ahaa laakiin cilada ay jirtaa waxay tahay wasaaradda active ma ahan oo maanta lama dhahayo sida hadda loogu xisaabtamo wasaaradda gaadiidka wasaaradda maaliyadda maanta waa lagu xisaabtamaa oo waxaa leeyahay wasaaraddan intaan dakhliga soo gelisay intaan saanay samaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale waa maanta seera-eeday ku jirtaa wasaaradda gaashaandhigga oo kale waa aragtay seera-eeday ku jirtaa isgaarsiinta oo kale wasaaradaha kale eegay maanta cariirsanayaan ay leeyihin anaga eeyaana bii ma lihin ayada la rabay inay aad ay hogaami u noqoto ayada iyo waxaa la rabay inay isku balance noqdaan wasaaradda maaliyadda oo la dhaho dakhliga wasaaradaha markii la fiirinayo wasaaraddan saanay samaysaa wasaaraddan saanay qaabilsantaa laakiin booska kuma jirto marka xarbiyadoona insha Allah xukuumaddan hadda haddii sii joogto iyo haddii mid kale imaan doontaba wasaaradda kalluumeysiga waxaa la fariiminta inay uga gudbiyo wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga biliis active ka dhiga
wadan kasta wuxuu ku faanaa kheyraadkiisa anaga kheyraadkeena inaan ku faanaa dan noogu jirtaa mahado waanan dhinacna waa wasaaraddu waxaa ka leeyahay actifnimada oo waxay haysaa connectic maamul goboleedka halkaas kaalin fiican uga jirtaa 100% waan rabaa inaan inta ku bogaadiyo wasaaraddu negative in laga sheego maahan positive ku saxantaan oo inaa sheegi kartaa waa in wasaaraddeena anaga dan noo tahay maanta hadda anaga caayno ama ii sheeg wax si ay sijiraan aan ku tilmaamno waxay noo noqonaysaa anaga isbahdileeno boos anaga dalkii aan dhex joognaa muu dadkii dalka u dhashaanahay wixii wax dadkii bartaanna maanta adiga gudoomaha waa aragtay maarin sanisata haddaad wasaaraddaada maanta kalsooni adag ku qabin oo aadan taageerin qof kale ku taageerayso ajnabi ma jirto marka saas la ajnabiga wasaaraddeena waxaa jeclaan lahaa inay wasaaradaha kale ee ka hormarto oo active ee noqoto marka intaasaa kusoo gabagabeynaya su-aashaada kabtan sidoo kaleeto kabtan aniga isla su-aashaan reference gareynayo wada shaqaynta ka dhexeeda wasaaradaha kalluumeysiga ee maamul goboleedyada iyo wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sidee u noqon karaan kuwo shaqada saabsan u socoto ala marka lagu daro mid hadeertaan oo shirkan toddobaad iyo shirka kale aan soo qayb galeen oo Puntland dhamaan marka isku daro sidee saabsan ugu soo kartaa waxa ku soo kartaa horta ii sheeg kow wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo ra'iisul wasaaraha si waxa loogu talagalay in gudaha arinta oo ka jirto oo xil saaran yahay wasiirada asaas soo xulaayo asaa amarsiyo asii shaqadiisa tahay waxa la rabaa wasiirka kalluumeysiga in iyo ra'iisul wasaaraha in is fadhiistaan ama isla fadhiistaan ee hadhow dhahaan horta maxaa inoo dan ah wasaaraddan maxay wasaaradaha kala dalka uga waajibkooda iyo gudnadooda iyo waxay uga baahan yihiin budgetkooda maxay u qaadan lahayd waa in isweydiiyaa maamulka oo isha hadda leedahay Puntland maamulka Puntland ayad wax looma diidanay ayaga wax diidan sida markii halkaas laga fiiriyo waxaa moodaa isha xogaa in wasaaradii wax kasta active ay ka yihiin oo connected wasaaradaha ilaa maamul goboleed ka fiican maanta ma jiro maamul goboleed laga hormarinayo oo intaana wax la siinayo asaasana ma jirto oo maamul goboleed kasta asaa iskiisa isku maamulo oo federalism dalka qaatay oo wax lagu maamulaa marka ka wasaarad ahaan ayaga la rabay in wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha inay dhahaan maamulkan xaq u leeyahay siyaasad marka laga soo tago wixii waajibka ah saarnaa ama inay soo gutaan la rabay gortan kama geli karto wasaaradda waa qasab inay yimaadaan taas wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha la rabay inay arrintaas adkeeyaan oo waxa la rabay isha maamulka Puntland ayaga moogta ku kuuya ma aha shayana ma waa dad walaalaheena isla anaga ee dhexdeena ah siyaasadda waxa fiicnaan lahayd in laga dhex bixiyo siyaasadda iyo shaqada in la kala saaro qosa wasaaradda waa qasab wasaaradda kalluumeysiga Puntland waxay hoos imaanaysaa wasaaradda xukuumadda ah ee hoos imaada dowladda dhexe marka waa qasab wax kasta in sidooda iskugu xiran yihiin iskugu aadiyaa marka Puntland waxaa moodaa fartamada markaad website-ka kale ka fiiriso oo aad tiraahdo maanta Puntland maxay ugu imaaweyday cilad ayada haysato oo jirta aan ahayn siyaasad taasaa ka xaqiiqsanaysaa marka waa dhinaca kale markaa ka fiiriso oo maxaa la leeyahay maanta wasaaradda maxay u maqan tahay maamulka Puntland wasaaradda kalluumeysiga maxay maanta u maqan yihiin siyaasaday u maqan tahay marka waxaa la rabaa wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha dalka inay dhahaan siyaasadda halkaas naga taalo maamulka Puntland wasaaraddan siyaasaddu waxa la isku haysto halkaas la iska dhigo ha laga hadlo ha laga dooda ah soo ajiib imo maamul goboleedyada kale waa imaadeen wixii waxa la wada horumarinayo ma ahan kaliya wasaaradda dowladda dhexe ah ama ma aha waa meel kooban oo xamra ma aha meesha la horumarinayo waxay tahay dhul Puntland kasoo bilaaw cirifka loo yacade ilaa cirifka Raaskamboona ama Lamu dowladda Soomaaliya leedahay ama dhulka Soomaaliya oo intaas ku egyahay xuduudiisa marka leeyahay Lamuna dad iyo saxmaan ii fahmin ana waxa aaminsanahay Great Soomaali wax la yiraahdo ma aaminsani in sheeg
Soomaaliya hadda sida loo dhigo 7ka ah fikirkiina halkaas waxa rabaa inay ila fahantaan kabtamada tiimkana u sheegaya xawaa anu waxa aaminsanahay great Soomaaliyeed shantii Soomaaliyeed aaminsanahay meesha suudinta ii taalana tii 60 ilaa hadda taas aaminsanahay marka kabtamada anu ku soo koobayo hadalka waxa la rabay Puntland maahan Kenya maaha Ethiopia maaha waa dad Soomaaliyeed waxa waajib ah marka xuquuqdeeda inay qaadato oo kaalinteeda horumarka ay soo bandhigto waayo ayada maanta dekada way heesaa waa aragtay dhalinyarta oo dalxiiskina u tagaan go'aanya arkaysaa waxa arkaysaa ilaa iyo qarkii jilbigi raasacseer inay dhalinyarta soo duubaan meel ka caagan ma ahan dhalinyarta inay soo bandhigaan ama dalka uu leeyahay kuuyo waayo waa dal shisheeye inay tahay marka waxa kala dhiibi lahaa wasiirka dowladda dhexe kalluumaysiga ah iyo ra'iisul wasaaraha inay u sheegaan maamulka Puntland wixii siyaasad waa siyaasad wixii aan siyaasad ahayn oo dhabta ahna waa tii dhabeed in la kala saaro aan la isku darin marka jawaabtu waa taas marka ku soo koobo waa gartay intaas sidoo kale waxa ku weydiinaa kabtan ma jiraan system ama program oo coordinate garanayo ama isku xirayo guud ahaan wasaaradaha kalluumaysiga dalka maamul goboleedyada iyo mid xukuumadda federaalka Soomaaliya ma jiraan programadaas horta wasaaradda hadeertaan sida caadiga ah xogta ee heeso maamul goboleedyada ay soo gudbiyaan iska xog oo ii sheeg mararka qaar igu sawir noqoto waana sababeynayo waxa u leeyahay hadalkaas maanta xeebaha dalka maamul goboleed kasta ha noqdo maamul goboleed dhihi kara maanta wixii soo baxan goobjoog ka ahay ama wixii badda maanta laga soo saaray goobjoog ka ahay ma jirto oo data sax ay soo gudbinayaan waxay soo gudbinayaan waa wax oo dreaming ah marka sometimes dhinacaas laga fiiriyo sida kale hadii loo dhigo warka ama hadii dhinaca kale oo website-kan laga fiiriyana ayada xitaa xogaa waxa jirta inay wax yar mudmado jirto waayo wixii lagu heshiiyo la qoro waa in la fuliyaa oo inay fushaa maamul goboleedyada waxbay soo gudbistaan dowladda dhexe way fiirisaa kan wasaarad ahaanna way fiiriyaan wasaaraddu wixii markay qabato waxa la rabaa maamul goboleedyada inay dhaan waxaan waa ka hadalne waa isku afgarane heshiisa lagu yahay waa in la dardargeliyaa waa in active laga dhigaa wasaaradihii maamul goboleedyada active ma ka dhigayaan maanta ma jirto maamul dhihi karo xeebtaas wixii ka soo baxo oo ka maamul ahaan haddaan nahay maamulkeena tusaale oo kale Jubbaland ha noqoto tusaale oo kale ha noqoto ii sheeg waqooyi bari oo hadda gadaal ka soo birta macnaha fogaanta oo u jirto Jubbaland iyo ii sheeg waqooyi bari masaafada dhulka isku jiraan waa qiyaasi kartaa maanta ma dhihi karo maamul halkaas soo istaago oo xeebteeda waxa ka soo baxo maanta waa intaas markabkii doonta waxa ka horeysa kalluunka soo baxaayo kalluumaysatada kalluunka soo dadayaan kalluun taran xaalad taran ku jiro la leeyahay hala soo dabo ya qof controleysa male marka wasaarad kasta hadda aragto dhinacaas ka fiiriso horta waxay soo gudbiyaan waa ugu sawir qabtan marka waayo wax xakameyn ilaa hadda tan la xakameeyay ma jirto oo la dhihi karo saaka kalluunka ama shati hawata ama shati kale iyo soo wadan maraakiibta shisheeye doomaha shisheeye taas waa xaalad laga raba ay waajibkooda inay gutaan waan hadda waxa ku leeyahay waxyaalaha qaar waa baranki taas ka mid ah kalluunka la xaalufinayo wasaaradda controlsha ma jirto maamul goboleedka dhan aan ka hadlayaa guud ahaan cilada jirto runta ahna taas ah control badal control ma jirto oo dhinaca kalluumaysiga ah idan waxa ka hadlayno waa kalluun wasaaradda maanta controleysa ma jirto inta dakhli ka soo gasho ayaga xitaa inay horumaraan dowladda dhexe waxay dowladda dhexe ku tahay maamul kasta waxa la yiri wadanka wuxuu qaatay federalism oo state kasta iyo maamul kasta saas maamulo marka maamul dhihi kara maanta ku dhici karo sideed sunkeyga xeebteedu waxay ka soo baxo waa haystaa waa
ويقرون ذات ليستي يجران حالفين أكتر كم جرتو دومهن أما مراكبتها شيئها شتى الدولة حمر كسر قاتين أما شتى أنا أنسي أنكوهبو كل شقيان أو وحنا نضع السمايان عدينا على جهة وزارة اللوسو دوم جرتو اوكي marka taas inta ay soo bandhigin soo midna kuwa inspectora oo doomaha marakibta والله horta waa ku leeyahay marka inspectorka ma ku imaanayo kabtamahada waxa la rabaa horta inay wax ku yimaadaan inspectorka ama wasaaradda gaadiidka ka socdo ama wasaaradda kalluumaysiga ka socdo waana sida caadiga bad markii laga hadlaayo labada wasaaradood laba qof ka socdo waa inay fuulaan markabka ama doontaas markaas oo shisheeyaha ah ay ogaadaan midna wuxuu ogaanayaa cabashada kale oo ii sheeg kuruyada oo simaanada la wareysanayo la leeyahay doontan ama markabka inta saarneed malagu xogaa malagu waxa gudub ma lagu sameeyay malagu cunsuriyay dadka dhigi lahaaba ilaa hadda ma jiraan hadda laakiin maamulka Puntland ama mar waxa jirta kabtamahado xaqiiq waxa ahayd dawladda dhexe waxay soo qabatay waliba ciidanka Somali Navy ciidanka badda howlgal waxa ka sameeyay Sona Puntland waxay soo qabteen doomo Iiraaniyiin saa ku aragtay xeebta Liido oo xataa mid kamid ah meesha kawaan baraagtiisa iska caarisantaa midna ee badda ee saaranta oo shaqeynayso maalintaas doomihii la soo qabtay xamar la keenay dadkii maxkamadda gobolka iyo la keenay la xukumay xaaladooda waa ka warhaysay waa la socotay Puntland waxay bilowday inay qof Soomaali oo qorwad inay soo saarto waxay kaloo fasaxday doomihii shisheeyaha inay hub soo qaataan oo waxa arkaysa RBG oo 7 ku arkaysa waxa ku arkaysa BKM waxa ku arkaysa aqooyin waxa ku arkaysa bastoolado heerkaas inay gaarsiiyaan ma ahayn laguma talagelin qofka shisheeyaha haduu ku yimaado waa inaad la dhaqantaa inaad dal inuu soo asiga ku arko shisheeyo inaad taaso asna waa inaad dareensiisaa meeshaan faataxa kuma joogno moogta wadanka anaga iskale waxa noo soo galay anaga noo soo galayaan waxay baxayaan anaga noo baxayaan in la dhaho inta wadankii joogtid mas'uuliyadda oo amniga anaga qaadayno maxay ku imaan kartaa mas'uuliyadda amniga waxay ku imaan kartaa waa mar dawladda dhexe shati maanta amraan maamul goboleedyada loo wada diro oo la yiraahdo doon kasto ni soo gasho shatiyadan siiyo hadhoodi shatigan ama shuruucdan wuxuu ogolaanaa in inspectorada la helo amaankooda iyo hubka ay sheegayaan in la dhaho hub ma soo qaada kartaan biyahana way noo controlan yihiin kalluunka bixinaysan waa inaan aragnaa mid taran wada miya xaalufin ma sameynaysin jariifooyin ma sameynaysin waa in wax kasta إلا حد تمام قبلات ده شغالة قبطي مجرو مركا وحيالها قار وبرنك مكا كلها وتاس كابتن وانا علق جدو وحرجينا ان شاء الله انا لو ذو كناتين لحد وحي كدن بي انك قد بدون خيالي يشا برنكي ان شاء الله كابتن waxaa ku weydiina isla jawaabta hadda anigoo reference gareynaa sababaha doomaas ama maraakiibta subka soo qaadanayaan ma la dhihi karaa in ay ka baqayaan waxa jiro xoogaa burcad badan ama waxyaabo noocaas cabsi noocaas ay ku jirtaa horta mida aaminsan fikira kabtamahado horta burcad badeed waa shaabad sax waa shaabad adiga markasta la rabo in lagu baarto burcad badeednimadu sax burcad badeed waxa ku imaadaa qof xoolihiisa ma kala qaadato wadankiisa ku soo xadgudubtay waxna anigi oo wadankayga sharci kuma soo galin xooga ku soo gashay xoog hada ku soo gashay waxa rabta ka dhax sameynaysid sida adiga jeclaysid in wax laga u sameeysto aadamkii ka anagu ku sameeyna saxaynka kuya taa kuma aqaan ani hada Philippine tahay hada Iran tahay I don't give a shit kuma aqaan sida adiga wadanka ugu ilaashato akeeyo ilaashana marka filimka ama shaabadnimada hada maqsad waa shaabad la rabo in lagu dhaco ina taas fahanaa fiican shacabkeena waxaan anigu burcbadeed Soomaali ma sameeyeen marka dib u raacdo waxa uu sameeyay ajnabi waxa u maleynaa inay sameeyeen Ingiriis barnaamijkan burcbadeed ay Mareykan qaabay Soomaaliya hubkooda iyo awood in ugu sheegtaan ay ku soo galeen marka burcbadeed min xuliisa aad dhacayso haduu ka ilaa oo ka cishana iska ka difaacayo oo kulliye waxaan aniga wadankii xisaan kuma soo gali kartid ma noqonayso in qofka shaabad dabada laga geliyo oo burcbadeeda marka waxyaalaha ka xad u fasaxay ay maanta in la soo galaan waxa la yiri Soomaali wuxuu ku maamahdaa ishiisa laga arka ishiisa lagu garaaca
waxa aniga isku geysana maanta dhibkaas noo keenay maanta sanku neefle oo bilaashada dalkan ku joogi jiro oo ku joogi karo ama ku kulmaysan karo ma jirto marka waxa aniga isku keenna waa waxa ay dad shisheeyaan noo keeneen ma aha